السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا ولا لها قيمها لكو سودة هذا somalibusiness.info ما أنت وحان ربا إلى أن نلهد له وحلا له Airbnb إنا نلهد له دونا يا مانتا مركملها آذنا وحاني شيغا فائدة دي ساني شيغا يا iyo si aad lacag ka qabsan lahayd oo lacag ka qabi lahayd ayaan tusinaya aan sheegaya marka muuqaalkan daawada soo dhawaada akhyaarta walaalahayga oo qiimaha leh waan wada salaamay si aan hore u sheegnay maanta waxaan ka hadlaynaa programka la dhaho Airbnb ayaa ka hadlaynaa Airbnb waxa waaye macnaha waa app oo telefoonada mobilada ku jiraan macnaha dadka oo guri u baahan inay rabaan guri inay kireystaan oo kale appkaas ayuu galayaa markii appka galo magaaladu asiga joogo magaaladaas uu ka fiirinaya macna meel guri uu ku kireysto ayuu ka raadinaya markii waxaad sameyn kartaa adiga see lacag u qabanay see lacag aad ka kasbi kartaa programka waxaad sameyn kartaa macna hada guri leedahay qol dheeraad hada leedahay ama guri oo dhameystiran oo kaamil ah hada leedahay oo aad macna oo aad isticmaaleenin ama guriga aad hal qol ama laba qol ka banaan yahay oo aad isticmaaleenin oo faariq yahay waxaad sameey kartaa waa hagaaji kartaa waa toosi kartaa waa qurxi kartaa sawir ka qaadi kartaa marka sawir ka qaadid kadib waxaad gelinaysaa Airbnb ay gelinaysaa marka waxa arkaya dadka oo macna guri u baahan oo meel u baahan hal caawo ama laba caawo ama hal week yaa meelahaas ama 3 cisho ama 4 cisho oo rabaan meel ilaa seexdaan way waxay arkayaan guriga adiga oo aad meesha gelisay ay arkayaan way kula soo xiriirayaan kadib macna lacag ku siinayaan lacagta kirada ay ku siinayaan way ka kireysanayaan kadib macna sidaas ayaad ka sameeysi kartaa business ayaa ka dhigi kartaa marka programkan waxa waaye Airbnb dunida meel kasta laga isticmaalaa Africa waa laga isticmaalaa Soomaaliya waa laga isticmaalaa laakiin dadka Soomaali kuma badna laakiin way jiraan oo ka shaqeynaya Soomaali dad qofka haduu safraa macna xilligan ugu jiro dadka badana way safraan dadka Soomaaliya aadaan meelahaas ay aadaan dadka qaarkood waxay degaan hotel ay degaan macna maxaa marabaan macna qaraabo iyo waxaas ilaa la degaan ama waxa laga yaabaa qaraabo iyo wax ehel iyo waxaas ilaysan qabin laga yaabaa meesha u socdaan dadka qaarkood hotel ma jecla markii waxay sameeyaan Airbnb ay kireystaan Airbnb iyo hotel dal isku fiiriyo in yar macna hotel aad iyo aad u qaali u yahay Airbnb uu jaban yahay uu ka raqiisan yahay hotelka marka sida ay dadka u jecel yihiin ay sida ay ka kireystaan marka adiga waxaad sameyn kartaa Airbnb magaalada joogtid ha ahaado Soomaaliya hada joogtid Carabaha hada joogtid Yurub hada joogtid Mareykanka meesha ka joogtid waxaad sameyn kartaa Airbnb ayaa macna aad business ka dhigi kartaa meesha macna gurigaaga ama qolkaaga meesha ka kireey kartaa dadka oo macna safraayo magaalada imaanayo ayaa ka kireey kartaa aniga waan isticmaalay Airbnb dhowr jeer aan isticmaalay waqti dhow waxaan jiray Kenya ayaa jiray adiga bilooyin ka hor Nairobi iyo Mombasa aaday marka meesha Airbnb way qabaan waan ku isticmaalay marka waxa waaye macna systemkooda waa system aad u fiican dadka qaarkood waxa waaye macna lacagta waxay ka bixiyaan app-ka Airbnb dhaxdiisa lacagta ka bixiyaan iyo dadka kale macna waxay sameeyaan
qofka oo micnaha guriga u baahan way la kulmaan. Markay la kulmaan kadib yaa micnaha markay la kulmaan kadib qofka micnaha meeshuu lacagta ka bixi lahaa Airbnb dhexdiisa inuu ka bixi lahaa lacagta wuxuu bixinayaa qofka cash ayuu lacagta bixinayaa. sidaana way jirtaa, dadka sidaa way sameeyaan. Okay, marka computerkan galaynaa waxaan tusayaa Airbnb aan tusayaa habka account uu furi lahayd yaa iyo micnaha sawirihii iyo waxiisa u geli lahayd iyo waxaas ayaan tusayaa. aad iyo aad u fudud yahay, ma dhib badna yaa. kadib micnaha marka accountiga furatay kadib magaalada informationka iyo waxaas markaa gelisid yaa dadka magaalada meesha ka joogtid, dadka magaalada oo musaafiriinta magaalada imaadaan oo u baahan meel inay kireystaan yaa waxay arkayaan gurigaagi oo micnaha oo kiro yahay arkayaan. marka sida waa sameyn kartaa, kadib ay kula soo xiriirayaan. micnaha business waa income dheeraad, dakhli maaleed oo dheeraad ah kusoo galayo. waa micnaha sida business oo kale cash dheeraad, lacag dheeraad ah helaysa. marka waxa waaye micnaha waad ka faa'iideysan kartaa. dadka dunida badanaa sida ay sameeyaan, dadka $100 bishii ka qabtaan, meelaha qaarkoodana $10 ka badan ayay bishii ka qabtaan. marka waa micnaha program oo faa'iido leh yaa. marka waxaan rajeynayaa adigana in aad yaa oo ka faa'iideysatid. marka computerka galana waan tusayaa. Okay, waa kana computerka ku jirnaa. marka koowaad waxaad sameynaysaa, waxaad aadaysaa airbnb.com ayaa aadaysaa. marka aadid kadib waxaad ku dhufanaysaa halkaana ku dhufanaysaa host a home ayaa leedahay. halkan ujeedi Soomaa wuxuu leeyahay micnaha earn money as an Airbnb host. Okay, magaalada gelinaysaa kadib misaal ahaan waxaa leenahay Muqdisho Soomaaliya. micnaha waa kana ujeedaa wuxuu leeyahay micnaha hadda Muqdisho joogtid yaa bishii waxaad heli kartaa $937 laga yaabaa ilaa heshid. oo micnaha haddaa qolkaagi ama guriga haddaa kiraysid yaa haddaa gelina for example Hargeysa haddaa gelino waxaa laga yaabaa ilaa heshid bishii yaa wax u dhow $1,000 wax u dhow ilaa heshaa laga yaabaa $994. kadib waxaa gelinaynaa for example Nairobi iyo Soomaaliya ka lacag badan. Nairobi haddaad joogtid waxaad helaysaa adii $660 wax u dhow. Okay, marka waxaa gelinaynaa for example Muqdisho ayaa gelinaynaa. then waxaa leenahay get started aa leenahay. halkaana ku dhufanay meesha ku qoranaya sign up ana isdiiwaan geli account cusub furo. alright, ana waxaan leeyahay sign up with an emailka gelinaysaa. magaca gelinaysaa, magaca koowaad, magaca saddexaad iyo password ayaa u yeelaysaa. mina waxay rabaan password oo dhib badan ay rabaan in aad gelisid, wax oo fudud ma rabaan. markaad password gelinayso waxaad qasab ilaa gelisid password oo dhib badan, laakiin meel ku qor ha iloobin si aad u xasuusato. taariikha dhalata gelinaysaa. kadib waxaa leedahay halkana ku dhufanay micnaha waxaa leedahay micnaha sharcigiina iyo shuruudahiina kulli waa adeecayaa. kadib halkana ku dhufanay sign up.
kan ina akhrisid waaye terms of conditions macnaa qaanuunkooda dhan ayaa ku qoran yahay meesha. I accept aa leedahay, waa ogolahay. kadib next aa ku dhufane. macnaa waxay rabaan sawirkaagii meesha ilaa gelisid. aad iyo aad u fiican yahay sawirkaa meesha ilaa gelisid si dadka macnaa qofka gurigaa kaa kireysanayo soo ogaado siday u eg tahay iyo waxaas. macnaa waxaan ku dhufanaya I'll do it later aa leeyahay, hadhowtaa sawirkay gelinaya. alright, midda kale nambarkaaga rabaan ila xaqiijiyaan telefoonka nambarkiisa gelinaysa. okay, kadib halkaan ku dhufanaysaa start exploring. okay, su-aashan oo ku xigta wuxuu ku leeyahay what kind of place are you listing. mina guriga oo rabtid in aad kiraysid waa guri noocee? mina apartment miya, house miya? yaa mina guryaha way kala yihiin, marka waxaa leenahay house ayaa leenahay. mina guryaha way kala yihiin, guri noocee waaye? yaa guryaha minaa dunida kale adduumaanka mina guryaashoodii yaa mina waxa waaye noocyaal badan ayaa loo dhisaa. marka adiga nooca rabtaa doorsanaysa. hadii halkan ku jiro haddaa garanaynin yaa waxaa leedahay house ayaa leedahay. mina wuxuu ku weydiinayaa guriga oo dhan ma rabtaa ilaa kiraysid ama hal qol ilaa kiraysid ama laba qol ilaa kiraysid, maxaa leedahay? yaa mina waxaa dhehaynaa naka private room, mina hal qol oo khaas ah oo private ah aa rabnaa in aa kirayno. okay, mina wuxuu ku leeyahay mina meesha kiraynaysid meel adiga oo qofka oo kaa kiraysanayo oo martiga ah maa la qaybsanaysaa ama meel adiga oo mina oo martiga khaas u gaar ah weeyaan. marka waxaa dhehaynaa meeshan wuxuu gaar u yahay oo khaas u yahay martida. mina wuxuu leeyahay mina adiga company maa leedahay, shirkad maa leedahay oo guriga halkan shirkadda mina ma ka isdiiwaan gelinaysaa ama qof caadi aa tahay oo shirkad lahayn. marka nooca leenahay shirkad ma lihi. okay, hal qol waaye. marka wuxuu ku leeyahay hal qol meeqo qofood ayaa mina ayaa seexi karaan, meeqo sariir ayaa ku jira. mina hadduu hal sariir kugu jiro hal sariiraa gelinaysaa. yaa haddii hal qofood seexi karaan ama laba qofood haddii seexi karaan, saddex qofood haddii seexi karaan, afar qofood haddii seexi karaan waad gelinaysaa. mina qolalka qaarkood aad iyo aad u weyn yahay, waxaa laga yaabaa in luu deeqo 3 sariir iyo 4 sariir meelahaas. waxaan leenahay laba qofood ayaa meesha seexi karaan aan leenahay. meeqa sariir ayaa ku jiraan uu ku leeyahay, waxaa leenahay 2 sariir. okay, kadib waxaa leenahay next. okay, muqsusha wuxuu ku leeyahay meeqa muqsul ayaa mina uu leeyahay gurigaaga. waxaa leenahay hal muqsul ayuu leeyahay. okay, wuxuu ku leeyahay adresska geli, cinwaanka geli ayuu leeyahay. marka cinwaana gelinayna muqdisho aa leenahay. okay, su-aasha kale wuxuu ku leeyahay macnaha guriga muxuu la socdaa, mukeyf ma leeyahay, maxaa la dhahaa kii timaha laiskaga khalajiyo ma leeyahay, armaajada dharka la gashto ma leeyahay, feerada dharka lagu feereysto ma leeyahay, tv ma leeyahay, television ma leeyahay. marka television waa leenahay, dharka lagu feereysto wuu leeyahay, feerada oo timaha laiskaga khalajiyo wuu leeyahay leenahay, mukeyf wuu leeyahay, internet wuu leeyahay, shampooha timaha lagu dhaqo ma leeyahay, haa leenahay, meel oo laptopka la dhigto oo qofka duuraba macnaa laptopka inuu ka shaqeysto yaa macnaa miis ma leeyahay, haa leenahay miis
quraac ma bixisaa ama gaxwo ma bixisaa? ha aan leenahay quraac iyo gaxwo waa bixinaa. okay, next aan leenahay. okay, meesha makiinada dharka lagu dhaqo ma leeyahay? ha aan leenahay. meel gaariga la dhigto ma leeyahay? may aan leenahay. ma calaameyneyno. g ma leeyahay meesha micna oo lagu alamenteeyo oo biraha lagu qaado ma leeyahay? hadduu leeyahay waa ku dhufanaysaa. laakiin aniga waxaa leenahay meesha dharka lagu dhaqo leeyahay aan leenahay keliya. wixii kale waa ka gudbeynaa. okay, hadda wuxuu ku leeyahay waxaa qaadataa sawir qaado. sawir qaado ayuu ku leeyahay. micnaha meesha adiga kireynaysid, qolkaa kireynaysid iyo sariirta iyo suu nadiif u yahay iyo waxaa sawiraa ka qaadaysaa. sawir markaa ka qaadid kadib yaa qolka iyo sariirta iyo meeshaa kireynaysid sawirka ayaa halkan gelinaysaa. okay, sawiraa computerka igu jiro, marka sawirkaas ayaan gelinaynaa. waa kana. next aan leenahay. marka wuxuu leeyahay hadda description, faahfaahin ku qor. qolkaagii noocuu yahay iyo alaabtay ku jiraan iyo yaa waxaas ku qor. marka waxaa ku qorayaa description ayaa ku qorayaa. okay, waxaana su-aaladayaa. marka su-aalahan dhan aad buubuuxinaysaa haddaa rabtid. mina xaafada ka hadlaysaa, xaafada mina xaafada degan tahay iyo xaafada hadduu ku yaalo meel oo micnaa gaadiid laga qaado, bas iyo waxaas haddii laga qaato ama uber ama taxi meelahaas oo hadduu ku dhow yahay, suuq hadduu ku dhow yahay. kadib next aad leedahay. marka magaca u yeelaysaa title. waxaan leenahay welcome to your second home. waxaa leenahay gurigaagii labaad kusoo dhawaaw. mina wuxuu rabaa sawirka ilaa gelisid ayuu rabaa. yaa sawirkaagii in aad gelisid. marka ani sawirkay ma gelinayay, marka waxaa gelinayaa sawir kale ayaa gelinayaa. kaadi kan sawirkayga ma ahan, sawir kale weeyaan. laakiin adiga sawirka ilaa gelisid ayay noqonaysaa. aniga maxaa yeelay accountigan run ahaantii uma furaayo. waxaa u furayaa micnahaas ninkaan nii tuso habkii loo furi lahaa Airbnb. saas ayaa u furayaa. laakiin adiga haddaad rabtid in business aad ka samaysatid oo lacag ka qabsatid oo lacag dakhli dheeraad oo bil kastoo ka heshid, waa in aad oo micnaha oo sawirkaa gelisid. okay, kadib next aan leenahay. wuxuu leeyahay numberkaa geli ayuu leeyahay. numberkaa markaa gelisid kadib waxaa text message kuusoo dirayaa. text messagekaas wuxuu kuusoo dirayaa pin sida password oo kale. pinkaas halkan gelinaysaa. uu xaqiijinayaa inuu numberkaa yahay. marka telefoonka oo xaqiijiyo kadib waxaa leedahay finish ayaa leedahay. okay, finish ayaa leedahay. marka okay, midda kale waxaan tusayaa kadib qof ay imaade magaalada. qof imaade wuxuu rabaa meel oo kireysto ayuu rabaa. haddaa guriga aad gelisay, guriga ayuu arkayaa. magaalada gelinaynaa muqdisho Soomaaliya. hadda maasha Allah muqdisho dad badan aadaan sida oo dadka oo Yurubta qaarkood way aadaan. maxaa la dadka Mareykanka imaada way aadaan. dadka Afrika kale wadamaha kale ka socda way aadaan. marka hadda
oo Airbnb account leedahay oo macnaa oo aad ka kiray kartid yaa macnaa waxa waaye wuxuu ku noqonayaa business oo fiican oo wanaagsan ayuu ku noqonayaa. Okay, midda kale markaad sawir gelinayso waxaa laga rabaa sawir aad u fiican inaad geliso. kan oo kale qofkan wuxuu geliyay sawir oo qash ah yaa sawirkan oo kale malada waxaa la rabaa sawirka meesha adiga kireynaysid in dadka ilaa tustid. kan oo kale sawir ma gelinin, wuxuu geliyay yaa khariitada oo guriga ayuu geliyay malada sida. marka Muqdisho waxaa ka soo baxay 3 guri ayaa ka soo baxay. waxaa gelinaynaa okaadi Hargeysa ayaa gelinaynaa. soo ma jeedid sawir fiican la geliyay inta sawirahan waa sawir aad u fiican. Hargeysa wax badan soo baxay soo ma jeedid halahan oo dhan ayaa ka soo baxay Hargeysa. Okay, marka waa kaas sidaas loo sameeyaa Airbnb. faa'iidada Airbnb waxa waaye macnaa waxaad ka qabsi kartaa lacag dheeraad ayaa ka qabsi kartaa haddaad macnaa oo ku furan tahay oo niyada murtaax ku tahay qof macnaa gurigaaga ku imaado oo aad ka kiraysid. marka waa kaas okay, waa kaas marka waynu dhamaatay yaa muuqaalkeeni. waxaan rajeynayaa ilaa ka wax ka faa'iideen. qaanadan haddaa ku cusubtaa subscribe samey. muuqaalkan waxaad sameysaa share iyo like ku samee dadka kale oo macnaa oo u baahan wax oo programkan lamid ah gaarsii. waa kaas khayr badan ayaan rajeynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.